What? I forgot my money. Say go. I have the middle light now. The middle light. Marka use grace go. I don't know. dad xaasidiin iska jir marka live soo gasho ku xaasid inta kale aan kula hadlaynin soo dadkaas la hadlay xamaash u soo galnaa ka hadlay waxay ahayd maamada way dhiban tahay maamada maamalyo la leeyahay aan waa u naxay aad iyo aad baan uga xumay waxa ku dhacay so please dadka sida xun lacagta ku deedeeya lacag si xun ma lagu deedeeyo wada fiican lagu helaa wada xun lagu ma helo tryna wada fiican ku yeesh kartid inaad ka hadli kartid wax kale inaa u samaysan kartid YouTube inaa hidii dhaqanka Soomaaliyeed ka hadashid culture ka hadashid family kaaga wareyso xaafadiina wareyso la gal inaa YouTube Soomaaliyeed prank samee wax adigu waxa jeceshay samee laakiin qof ceebtiisa inaa share gareysid how isticmaaleen social media how isticmaal qof walaalka oo kala ama hooyada oo kala your sister xaaska oo kala walaasha oo kala how isticmaaleen inaad ceebteeda use gareysid inaad ceebteeda sii share gareysid inaad dad kale soo bandhigto tiraad waxaan soo dhigtay way qaawnaa wuu way kanaysa de qaawanta you can do nothing waxa qaban kartaa ma jirtid you can do one piece thing wax qaban kartaa ma jirtid wax ma qaban kartid gacanta inta ula tagtay mar weyn ma u gelin kartid afka inta ula tagtay afka ma adkaan kartid laakiin halka wada kaliya inoo banaa waxay tahay inaan u ducayno oo Ilaahay u barino in Ilaahay caafimaadkeeda soo celiyo Ilaahay qof Abdurrahman Maxamed Makhtaar Xasan ceeb ma ka hadlay please waxaan arkaa walaalo dad soo dhigaya qamaamo xanuunsanaysa cisho kasto dhahaya waxaan aad sameeyay way isqaawisa way iskanis waxaad sameyn kartaa ma jirto you can do nothing waxaad qaban kartaa ma jirtid ani waxaan qaban karaa ma jiro teleefankaaga ka duubiso wax ma qaban karo Facebook share gareynaysa wax ma qabanayo maxaa wax qabanay inaad Ilaahay wajigiisa la hortagtid oo Ilaahay u baridid waa qof muslim ah waa qof adoon ah inaad u ducaysid inaad u ducaysid wax kaaga haboon ma jirto intaad sii share gareyn lahayd farax Yurub jooga farax Mareykanka jooga aad u sii share gareynaysid xaliimada kale meesha jooga u sii share gareynaysid ceeb qof walaalka is dhaafsanaysaan waa wax laga xishooday in qof walaalka oo kale cadow la share gareyso dad waraaba u share gareyso markaas tire markii YouTube ka Soomaali lagu qoro maamadaas kala soo bixi ku kala soo bixi waa ceebtan sii fogeynaysa laakiin maalintan wax qurux badan sii faa'iideyno wax like aanu ka helay oo adigu qof ahaantaada u bogtay markaad share gareysid ayaa wax horta adigu soo hubisay oo adigu soo share oo naftaada ka soo heshay dad la share gareeya lama share gareeyo waxa just maskaxdaada iska soo boodsiisay ku tira waad ka heshay waad jeceshahay so please xushmada laga shaqeeyo aniga waan isla gabar gardaran waan hay maxaa badda uga hadlayaa laakiin dumarnimo uga hadlayaa hooyanimo uga hadlayaa waa hooyadii oo kale waa walaashii oo kale waa habarartii oo kale qof dib in loo geysto isbaashi marka dumar tahay dib ahaanta qofku uma jeedo inuu dib ahaysto oo dibka lagu eeganaysa laakiin markaan arkay qof saas oo kale oo laga faa'iideysanayo ama maskax iyo aqli loo adeegsanayo in laga maskax badiyo ma jeceli waa qof dhibaataysan qof dadka sii share gareynaya waxay ka aqli badan tahay 10 sano ayadaada dhalanaysa ka aqli badan tahay qurux joojicid maamulin markay mara xirato waad aragtay saa u qurux badan tahay saa u egtahay waad aragteen marka quraanka akhrinayso aniga dhanba emotional kala awsaag wow marka quraanka akhrinayso waad aragteen marka dadku wax la share gareynayso waad aragteen please waa walaasha oo kale waa hooyada oo kale waa habaryarta oo kale waa xaaska oo kale si ceeb ah inaad u share gareyso ha isku dayin YouTube-ka wax fiican baad ka share gareyn kartaa Google isticmaal wax kale isticmaal laakiin ha u share gareynin inaad lacag ku heshid in lacag kugu soo hayto waxaan leenahay hidii dhaqan qurux badan oo mara xasma lagu dhaha hidii dhaqan kaliya ayaadan ka soo dhaxbixi karin hadaa ina lacag sameeyay rabtid hidii dhaqanka Soomaaliyeed ka hadal hooyada ayaa aabbaha joogay Soomaaliya Ethiopia meesha doonaa ka yimaadaan hooyada ayaa aabbaha hidii dhaqanka Soomaaliyeed weydii hidii dhaqankaaba ka far badan ba waxaad weydiisaa diinta muslimka noqo qof inaad diin baratid ajirka qof dadka la share gareeya YouTube-ka si fiican baad ku samaysan kartaa ama noloshaada ka hadal ama dadka waxa barata la share garee oo cisho kasta u soo dhig ama aad cunto karinaya xirfadaada dadka la share gareeya la share gareeyo qof kale wuxuu soo dhigtay ama iska leeyahay ama ceeb qof kale inaad sii faafisid Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku ku sheegay qof hadaad aragtid dhibaataysan inaad
إلهي ولا بريدو إلهي ونيم حد القرآن كل شيء صلى الله عليه وسلم وشيء وحده قف مركز وش شيء قلنا سدد كده حدي سدد وش هودح شيء إنه أنت تقولي والله هلا والله شيء وحال ده سداس كم في عنو مركز أن أجر كوي من يا سنة وإصلاح الله ساكن مركز تصدني سجال قف دحدة ذات كترة وح وعالم بعتها وح قام بعتها قف كيف كله أنا بنولا شيء ذكر حيا هاي قف كيف فيلم كانوا بمشي كينيا وحدايا كان نولا شيء ذكر حيا يا أخي دافي wuxuu ku arkay wax noloshiisa dhan ka soo horjeeda isagu daahir saxan buu soo arkaya adiga cali qaldan buu ku ardaya waxaan isleeyahay please dadka inaad isbedeshiin isku daya wax fiican baa laga hadlaa wax fiican baa dadka lala sheergareeyaa wax quman baa dadka lala sheergareeyaa hala sheergareeyo qofku inuu dhib haysto in dhibkiisa ha sii sheergareeyo oo Soomaaliga khariban hala sheergareeyn qof dadka inaad wax ceebiso wax fiican la sheergareey adiga 100 ceebood leedahay baa la asturi haddaad hal qof ceebtiisa asturtid ceebooyinkaaga dhan buu ilaahay asturi ilaahay baa adiga ku qoran ilaahay baa ku dhigay qofkan ceebti muslimka dadkiisa bilaadan ku qarinaya marka xataa wacdiga dhageysta waxa weeyaan ka hadlaysid qof maxaa markaad qof u ducaysid inaad meel fadhiisatid oo salaad ka baxdo qof walaalka oo kale u ducaysid malaa'igo ayaa ku ducaynaya tahay wacdiga dhageysta oo diinta ka hadla wax kale ku mashquula ilaahuma daahirada xildhibaanada loo dooranay ku mashquulshaan puntlandta ku mashquula laanlaandada ku mashquula saakin qof muslim oo walaasha oo kala oo gabar oo dhiban xuskeedii hadda ma joogo salaani aaminsan xamdaanta xuskeedii ma joogo qalbigeedii ma joogo niyadeedii ma joogto inaga dhanba inoo aragtaa dad khariban oo iyaduna daahir xalima saxan bay soo aragtaa please xushmad baa la isku dara waa hooyada oo kale hooyada mar ibtiinad qaan hooy maxaa sidan ku galay baadii hooyada aroos tagaysa dad aragtid oo maraq kala xirtay hooy maxaa ka qaldan baad ku dhigay wiilasha waan naqaanaa hooyada caawa habeentii aroostiga daarad waxa ku dhaxsan hooy xagee u socotaa maxaa ku dhibay eeshadaaka iska naar wax hooyada bad ayad suwaanini markaad gabar kale aragtid ceebteeda waad u ordi tii kala heesta iyo tana isqawsiyo aan kuwa sii sheergareynaya hal waxaan ku darsanayaa fikrad kale ah waxaan ku darsanayaa fikradaas waxay tahay war soddon familkiina oo dhan bay ka qurux badan tahay hadda iyadoo isqawsay iyadoo mar xiran wan in yar kama soo istaagi kartid meel حتى قف level la soo qaadi karo mid dadka si sheergaray waxaan isleeyahay waa dad boqolkiiba ay ka qurux badan tahay qurux ilaahay uu siiyay maskax ilaahay uu siiyay qofka haduu dib haysto ma la sii jiito waxan waxa u sameeyay wuxuu ugu badhacay oo duceeyay isaga sheergaray 39 jeer ba soo sheergareynaysi kana dhacay kana sameeyay kala sameeyay maxaa idin daba dhigay shaqo kala qabsada hadii isqaawsi who cares hadii ladan tahay who cares hadii dhimato ilaahay u naxariisto soo shaqooyin kala banaan ee shaqooyin kale barta oo wax kala sameeyay oo kor u socda dadkiina laguma soo dhex noqdo hore baa loo socdaa dadka Soomaalida tareen maxaan dadka dhan soo gudir waa wiilashan khad aad moodid dad hadda dunida u soo dareeray jinac dunida loo soo dareeriyay aad moodid war tareen dib u socda wadatina tareen hore u socda raaca oo dadka raaca kul waa 40 sano wixii dhacay ka hadisiin ana reejiir adeerkaaba uga dila uga cunay hebla isqaawisi hebel baa taagnaa laba iskuursaday dadka lagu mashquulo shaqadaada la qabsada qofka saas oo kale markuu dhibaataysan yahay waa la caawiyaa garab baa eegan waxa isleeyntan maxay ka hadlaysaa kurka madowee Soomaaliyeed aanu keenay luqad garan waagaay af Soomaaliga baan garanay isakay caaya عايدين وهربا ناد عايدين أنا قدام بيا بدي يصير so please حشمد إناد اسكودية حشميسان دتك اسكودية please وقف والده وقف دبن إلهي الله بريء أنت سيدك جت جل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك ندنا عاين شقة وعمان الله اسكسي شقيسته وأنا ودي شقيسيني شقية عن الله أنا دت سكتي الميدان عايدين ودي شقينسين شقة وعم بعد الله dadka inaad caydina shaqo cusub maaha ee shaqo xun weeyaan shaqo fiican oo kala daydeeda qof baa dhibaataysan oo ku sii farxaysin oo sii wadatin oo sii haysatin oo soo jiidaysin anigu waan ka xumahay maxaa aan uga hadlayaa maba aqaan magaceeda hadii leeyahay caawi ku dilaysaa iska ilaali ma garanay cid ay tahay ee waxaan uga hadlayaa waa qof dumar ah waa qof muslim ah waa qof hooyo ah waa maanta qaar ba hooyo u tahay qaar bay wiilkeed markaad maanta 10 jeer ku soo sheergareysay wiilkeed ma jeclaanayo waxaas kale inuu arko kaysadooda u tahay ma jeclaanayo walaasheed ma jeclaanayso please isku day inaad isfahantaan inaad dadka ceebtii aad la sheergareynaysid joojisaan haddii iyadu dhibaato haysato dhibka qofku markuu dhibka haysto ma lagu farxo qofka walaalka laba jeer baa lagu farxaa laakiin markuu dhibka haysto laguma farxo waa la garab galaa so isaka caaya and thank you so much ku caayada ka shaqaysta